awalka hore hurdada way kasoo boodayso qof mar walba caburmaayo soo booda hurdada kasoo booday marka bisaraaxa hurdadeeda alxamdulillaah si qurux badan ay u seexataa way caafimaad qabtaa maasha Allah ilaahay ii saa'idiyo marka taqaatay oo dhan waxa waa fiicantii bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Leila Maxamed waxaan imaaday isbitaalka Dalmar waxa iga xanuunsaneed muddo badan gabadhayda oo maaragtay xanuunsaneed qumanka iyo dhagaha 2 bil ka hor meeshaan imaaday balaa gabadhayda 8 sano iyo waxay jirtaa wax yar intaas waxay ahayd qof bukaan socdo maaragtay habeenkii aan seexanaynin hargab soo noqoshay halka bil waxa ku soo laabanaya hargab oo maxay ahayd dhagihii way cub bay noqonayaan so sometimes xataa waxa waaye cunto xumidi way u sii dheertahay qandho way u dheertahay macnaha waxaan ku wadi intaas qalajiyaal mar walba waxaan siinayay sharooboyna yani ilmihii anaga waa cabsanayna waxaan isleenahay ilmaha maxaa ku dhaca markii la dhaabo anaga sharoobo iyo qalajiyaa ka daba geynaa dhaqtarka markaa la kulmay alxamdulillaah isbitaalka Dalmar aan kusoo noqonay waxaa la sheegay gabadha inay qaliin u baahan tahay dhuunteedii maaragtay infection ay u sii socotay ee dhuunta isku xirantay marka ay cuntada xataa qaadayso qandhadan u sii dheertay waxbarashadeedina ay mar walba ay habsaan galayso marka alxamdulillaah qaliinkeedii way ku guuleysatay maasha Allah waxa dhiba ay hadda ay qabto mala quuradii iyo maaragtay qofii wixii hadda way ka fiican tahay alxamdulillaah awalka hore hurdada way kasoo boodayso qof mar walba caburmaayo soo booda hurdada kasoo booday marka bisaraaxa hurdadeeda alxamdulillaah si qurux badan ay u seexataa way caafimaad qabtaa maasha Allah ilaahay ii saa'idiyo waalidiinta Soomaaliyeed ilmihiina ka fiirsada intaad qalajiyaha aad ku wadaan waxa faa'iido kama keenaysaan cunugu ku dhaga beelaya marka intuu ku dhaga beeli lahaa ilmihiina inaad maaragtay isbitaalka Dalmar keensataa dhaqtar aad wanaagsan ay joogo qaliinkan aan waxba wax weyn aan ahayn oo ilmahooda ay maaragtay ay keensadaan ay maaragtay caafimaadkooda ay ka taliyaan u rajeynaya wallahi maasha Allah isbitaal maaragtay isbitaalada aan la mideeyna dhigi karaa xagga dad wanaagsan oo maaragtay nursing way wada wanaagsan yihiin dhaqaatiirta soo dhaweyn fiican nadaafada ka sii daran meel aan jeclaysan karo waxa waaye mar walba inaan ku xirnaado aan jeclahay waa isbitaalka aan kaliya aan ku qanacsanahay inaan mar walba imaado maaragtay caruurteeda waalidkeyga dadka aan keensado aan jeclahay aniga muhiimadda waa nadaafada iyo soo dhaweynta wanaagsan labadaas wax la helo malaha iyo dhaqaatiir fiican oo maaragtay insha Allah ku soo dhaweynayo magacaygu waa Iimaan Cabdi Maxamed maanta waxaan u faraxsanahay inaan soo qalin fiican ugu sameeyay marka aadayna waa faraxsanahay marka taqaatay oo dhan waxa waa fiicantii isbitaal Dalmar aad u mahadsan Dalmar Specialty and Teaching Hospital. Higsigeenu waa caafimaadkaaga.